saddex shay haddaynu samaynana waxaa si u saxmaya kow alcilm haddaynu samayno cilmigan ka warramaya waxa weeyaan ilaahay iyo aakhiro barashadeeda nabigu calayh الsalaaةu wasalaam wuxuu yidhi xadiiskii saxiixayn ku yaalay inamaa ana aclamukum biاllaah waakhshaakum lahu buu yidhi anaa ilaahay idinku aqaan buu yidhi anaa ilaahay idinku aqaana maxaa kaa ka dhalanaya markaa waakhshaakum lah anaana idinku cabsi badan waa qoladii xamaasadootee tidhi nebiga dembigiisa la dhaafay aan sidan yeelle ka samayn ee gruubkii xamaasadu qaaday ee saxaabada ka mid ahaa nebigu calayh الsalaatu wasalam wuxuu yidhi anaa ilaahay idinku aqoon badan dan anaa idinku cabsi badan marka waxaan leenahay war dadku wuxuu haystaa dhaqankii uu reerahooda ka soo gaadhay diin garan maayo walaa kuwiina jaamacadaha ka baxa garanaya walaa kuwa meesha baa garanaya nin waliba intii malcamadda loogu soo dhigu diinu haystaa waxaynu u baahannahay in dib loogu noqdo dadkan caqaa'idooda la saxo caqiidadan saxayna maaha caqiide kalaamiya tii cilmu kalaamkee hore maaha tii cilmulkalaamka dambe salafigaana maaha kuwaasi mashaakil haystay xallilayeen mashaakilkaasina maba haysto maxaan uga jeedaa dad maanta oo dhan jahmiye dadka u sharaxdo iyo murji'a iyo muctasila dadkani murjic iyo muctasil iyo midna ma yaqaan waxaan adaa akhrinaya adaa raba intaad gelisay inaad haddana ka soo saarto marka horena waad u sheegaysaa waad baraysaa markay bartaanna waad ka soo qufaysaa maha uma baahna waa dadkani arkaanuliimaan bay u baahayen in loo dhigo aliimaanu biاllaahi warasuulih وملائكته وكتبه واليوم الآخر loo dhigo dadkani waxay u baahan in loo dhigo caqiido nool oo keenaysa ilaahay cabsidii iyo muraaqabadii iyo muxaasabadii wax qalbiga safeeya qadaayaad caqliyo dihniyo uma baahanin marka cilmulkalaamkii horena ma rabno cilmulkalaamka dambena ma rabno kuwaasi mashaakil wakhtigoodii taagnaa bay daweynayeen dadkani midnaba ma haystaan bale waxay haystaan cilmulkalaam ka jadiid oo ilxaad iyo atheism iyo ilaahdiid iyo diintu sax ma tahay iyo mid kalaa bay haystaan waan kaaba ahayn kuwa murankoodu ma yaallo idan waxay leedahay cilmaa loo baahan yahay aqoon waxaynu u baahannahay caqiido oo inaynu saxno oo qofkani uu xad uu gaadho alictizaazu biاllaah inuu ilaahay subxaanaه wa tacaala weyn ku faano inuu rumaysan yahay waxyigu inuu la weynaado samada ka yimi ilaahay inuu arko inuu khabiiriyey oo caliimiyey oo xakiim yahay oo wuxuu isagu sheegaa inay sax yihiin adigunbaa fahamku iska ilaali inuu kaa qaldamo sida awgeed nebi maxamed calayh الsalaaةu wasalaam iyo saxaabadiisii markii nebiga la kaxeeyey la dheelmiyey cirka la qabadsiiyey waxaan bini aadam caqligiisa gelin baa ilaahay u sameeyey uu soo noqday quraysh muu ka qarinine wuu u sheegay markaasay qosqosleen ma maantuu taa la yimi bay dhaheen ma meeshaanu bisha u socon jirnay layskumaba haysto cirkaba xaggiisa waxba laysku haystaaba israaga hore in uu ka tegey maka oo uu tegey bayt اlmaqdis ma meeshaanu bisha u socon jirnaa tidhi xalay baaban tego haddana soo noqdo iyagoo nebiga saa ugu jeesjeesaya abibakar u yimaadeen markaasay dhaheen saaxiibkaa wuxuu sheegay ma maqashay oo muxuu sheegay waxay dhaheen wuxuu yidhi xalay baan intaan qabtay xagga ah ayaan haddana soo noqdo oo anigan jooga abibakar wuxuu ugu jawaabay lain qaala dalik laqad sadaq midhun hubi hadduu isagu yidhi waa dhab buu yidhi waa run waayo wuxuu rumaysan yahay ilaahay qadiira oo caalima oo xakiima oo casiiza oo dulquwati lmatiina wuxuu doono samayn karaa facaalu limaa yuriida buu rumaysan yahi wax weyn lama aha arrintu bini aadam hadduu yidhaha anaa sameeyey ha markaasaa muranku imanaya laakiin ilaahay baa sameeyey ma hubtaanuun buu leeyay inuu isagu yidhi lain qaala dalika laqad sadaq waxaan rabnaa caqiidadu inay nooca noqoto caqiidahay dadkana ilaahay ku kalsoonaadaan caqiidatii khusayma ah muxuu saxaabigaasi yidhi
nin bay nebiga neef xoolaa kala iibsadeen nin reer miyiya markaasuu soo ninkii baa yidhi waa waxba xoolahaygaa la siiyo murankii buu badiyey maaba kaa iibina xoolaa keen buu yidhi warsoodgayga iibiye buu nebigu leeyahy isna may buu yidhi markhaati keense baa la yidhi dee nebi maxamed cidina lama joogin markii ay kala iibsanayeen dabeetana khusayma yidhi anaa markhaatigaa furay maxaad furtaa la yidhi inuu kaa iibiyo ay sax tahay isaad sheegaysa oo khusayma noolamaad joogina maxaad ku markhaati furtay oo cirkaad nooga soo warrantaa war nooga keentay ma geedkan dhabarkiisa intaad ka keentaan rumaysan waaye buu yidhi ilaa imka waxaad leedahay halkan baanu ku kala iibsannay aniguna waxaan kaa rumaystaa in samada waxyi kaaga yimi ood samada war ka keentay baan qaatay dee ma geedkan baan qaadan kari waayey buu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalam wuxu uhi khusayma ninka u markhaati kacaa labau markhaatigiisu ku filan yihi idan ayuha alaxiba waa la addimay waynu iska soo koobayna waxaan leenahay inxiraafaadka dadka inaynu ka sheekayno ama qaylino ama oyno dumarkii baa xijaabkii dhigayay halkan baa laga baxay waxba waxaas ma bedelaan waxa wax bedelaa waa dadkani waxay aaminsan yihiin inaynu wax ka bedelno waxa wax bedelaa waa dadkan qalbigooda waxa gelaya inay wax ka bedelaan waxa wax bedelaa waa dadkan damiirkoodu inuu xukumo yaanay bulshadu xukumin iyo dowladda iyo qaanuunkeeda aanu xukumin qofkani wuxuu samaynaya dhaqan u noqonaya inuu noqdo qanaacadiisa iimaankiisa inuu noqdo markaasaynu leenahay waasica diinigii hadduu dhismo ayaa kuwa kale midhmidhka dhinaca rara ayaa markaa kuwa kale qabanayaan waasiciyada kale aynu sheegaynaa laakiin waasica koowaad aynu u baahanay waa kan ah ilaahay weynidiisa iyo muraaqabadiisa iyo xishoodka aynu ka xishoonayna inay badato markaasuu camalkeenu fiicnaanaya sala allahuma calaa muxamedin wala alihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin